بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله وحين سيوضينا سلسلة وعي قلين تاهيد كارهان بش رمضان هي خيرات كذا سانوك فائدي سن لهين. بش رمضان سيدي عادة تهي الله نكون مقعاب سبحانه وتعالى أياما معدودات وأيام ترسن وعرراية. waxay inoo dhaaftay ramadaankii intii sii badnaa ama 3 meelood marka loo dhigo 2 meelood ahaan ay inoo dhaaftay hadda sidii waxaan riyo ku aragnay oo sidaa ku hormaray oo kale waxay ahayd bishani tahayna weli hadda kuna sii jirnaa beer iyo weheshi iyo unsi bay u tahay dadka mutaqiinta ah Ilaahay ka baqas subhanahu wa ta'ala bishana sababta loo jideeyay oo in lagu kasbado ay tahay شهر رمضان الذي له كدغ markaasi لعلكم تتقون sababta loo jeeday ay tahay laakiin dadna waxay u tahay xariq iyo xabis iyo jeel bay u tahay kuwa qaafiliinta ah waxa liimaan leh qofka xarkii ku xidhnaa ee israafka iyo xadgudbiga ahaa ay bishani awgeed kaga furmeen deetana dhex digay oo maanta dhex fariistay Ilaahay mahadii iyo tawfiiqdiisa beerta taqwada markaas aad u qurux badan dhex fariistay oo ku taala guriga Allah subhanahu wa ta'ala in loo baahan yahay la muujiyo waxa la loogu dhawaado oo lagu baryana ugu weyn Ilaahay qofku ugu khatimo bishaaniyada ah ee istighfar ku khatimo bishiisa tawbana la socoto saasa markaasi aan rajaynayna inaynu bishaasi hadda intaan soo qaadanay aynu soo gaarnay waxaan mar labaad isku baraarujinaynaa inaynu aad uga walwalno umrigeena intaas ka maqan xoolaheenu markay wax naga dhinmaan waynu ka murugoonaa laakiin waxa la yaab leh qof hadii adduunyadiisu ay wax ka tigaan ka walwalaya laakiin umrigiisu oo rasuulmaalkiisa ahaaba hadii wax ka tigaan gaar ahaan ayaamaha khayrka ah aanan markaasi aad uga walwalin waxaana run sidoo nabigu noo sheegay kaleey salaatu salaam آخر الزمان كمركل لجوجو إنه وقته صوغا جابانيو نبي كتير ما عليه الصلاة والسلام أي لن نقول نقصه بشو أما سندو أي لم نقول يسو سيدا بالأوكلا إن نقول يسو حاجة مركل الله إيجا بركة إيوه سيدا وقته عرري مركل الله إيجا أيامه إسلا أيامه تردي لكن بركة إليهم بمركا يران إيسا ودق بيوحو عرريان sanadii marka waxay noqonaysaa bil oo kale la noqonaysaa bishii 7 oo kale jumco ayay noqonaysaa jumcihii wuxuu noqonayaa ayuu noo sheegay sidii maalin oo kale maalintiina waxay noqonaysaa sidii saacad oo kale saacadiina waxay la mid noqonaysaa caaw engegsan waa geeda timirta laamaheeda engege ee laga sameeyo dariinta laga sameeyo ayaa la yiraahaa laan intaas oo kale adab la qabadsiyo intii ku gubato oo kale iyo markaasi noqonaysaa saacadiina ay noqonaysaa marka taasi markaasi waa inuu aan ku baraarugsanaano ayaamihiisa aad ogtihiin way tageen hadda waxaynu fooda la galaynaa maalin kadib waxaynu fooda la galaynaa bishan 10keedii habeen ee ugu fadli badnaa ayaynu fooda la gali doonaa oo markaa inoo bilaabi doona 10ka iyaga ah waa 10 barakaysan waa 10 ay culimadu ku magacaabeen taaju zaman zamaanka ama waqtiga habeenada taajkooda iyo madaxa waxa loo saaro boqorada ee dahabka iyo dheemanka ka samaysan ayay ayaamaha kale u yihiin 10ka maalmood marka u dambeeyay waa 10ka la yiraahdo 10 tajalliyat waa banbaxa iyo soo ifbixa ilaahay naxariistiyo maarta wanaaga khayraadka u bixinaya ay soo baxayaan iyo nafaxaadka naxariista ilaahay neeftooda soo neefsanaysa ayaa ayaamahan soo baxaya waa ayaamaha markaasi iqaalatul atharaat sanbiri raxada iyo gafafka dadka ka dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dhaafayo ducadooda la aqbalayo naarta laga xoreynaayo saasan ilaahay ka baryeena inuu noqdo dadka ramadaanka markay baxaan dambiga wada loo dhaafo nabigu wuxuu yiri
ninka ramadaan u galay ee ka baxay oonan loo dhaafin goor loo dhaafi doono kaamar loo dhaafi doono marka ilaahay kuwa inuu naga dhigin oo dembigeena la dhaafo tobankaasi horta waa toban cajiiba oo la yaab leh oo marka ay ku jirto habeen kasta oo kamida iyo maalin kasta oo kamida ay ku jirto alcitqu min an-niiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa sooma si fiican u sooma ee ikhlaas iyo sidqi la yimaada ee qaabkii alla ugu talagalay in loo soomo u sooma oo naarta ku xoreeyo tobanka aniga waxaa ku jirta habeenada ilaahay abuuray ka ugu weyn oo leelatul qadriga ah ummadani ilaahay wuxuu ku galadaystay inuu siiyey maalmaha maalinta ugu fadli badan oo ummadii hore ay garab mareen waa maalinta jumcaha ah waxaa kaloo la siiyey habeenka ugu fadli badan oo habeenkii quraanka la soo deji ah oo quraanka aad ku akhrisataan oo ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inna anzalnaahu fii leylatin mubaaraka habeen barakaysan ilaahay ku magacaabay waxaa kaloo ku magacaabay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim inaa adduunyada habeenkaa laga bilaabo ilaa habeenka kale laga sii gaadhayo qorshaha kownka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dabiraayo tanazalu lmalaa'ikatu waruux inay malaa'igtu soo degaysa iyo jibriil ay soo degayaan oo hiya salaamun ay tahay habeenkaasi habeen nabadgelyo ay tahay khayraadku ay badan yihiin qiyaamka la kaco habeenkaa la tukadaana dembiga qofkiisa hore ogale oo dhan in lagu dhaafaayo wixii khayraad ee daacaad habeenkaa dhexdiisa la sameeyaana aw ka faldi badan yahay sida ilaahay qur-aanku yidhi khayru min 1000 shahrin 1000 bilood wixii daace ah oo saafi oo la sameeyay ay ka fadli badan tahay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inay habeenkaasi leelatul qadrigu ay yahay habeenada ka ugu fadli badan inuu yahay taasi bay culimadu isku waafaqsan yihiin waxa bishaare leh oo loogu bishaareynayaa janno loogu bishaareynayaa ninka habeenkeeda nooleeya nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa bisha ramadaan kii dadaal una dadaalin bilaha kale dhexdooda isagoo nabiga hadii jeerada dadaali jiray haddana tobanka bisha ugu dambeeyana wuxuu sii dadaali jiray dadaal ka badan inta bisha inteeda kale labada tankooda hore aw dadaalo ayuu dadaali jiray calayhi salaatu wassalaam sida Caaisha inoo sheegayso ma jiri jirin nabigu habeenku oo dhan soo jeedo oo salaad iyo cibaado uu sameeyo u soo jeedo oo habeenku oo dhan isku bixiyo oo waxba ka seexanin oonan ahayn tobanka dambe habeenada kale waxbuu ka seexan jiray laakiin bisha ramadaan tobanka ugu dambeeya habeenku oo dhan waa soo jeedi jiray calayhi salaatu wassalaam waxay leedahay ahyaa layla wa ayqadha ahla wa shadda mizara habeenku oo dhan buu soo jeedi jiray reerkiisuu kicin jiray oo salaadaha xaasaska ha tukado oo dadaalo ayuu odhan jiray oo cibaadaysta tii caado qabtay allah barido ayuu odhan jiray wa shadda mizara guntigana aad buu isku maatarkaysaa yani dadaalkana aad buu xin jiray guntigu isku kiirjin jiray macnaha waxa weeyaan aad buu dadaali jiray dumarka iyo reerka iyo waxyaalaha ku saabsan ee ayaamaha caadiga ah la sameeyana nabigu wuu ka hijroon jiray tobanka dambe marka la gaaro calayhi salaatu wassalaam Caaisha inoo sheegayso sidaa darteed maxaa yeelo tobanka gaar ugu sii dadaali jiray waxaynu ognahay farsaha la tartansiinayo horta waqtigan ku jirnaa waxa weeyaan sida Xasan al-Basri uu yiri waa meel loogu tartamayo khayrka ilaahay iyo naxariista iyo taacada ah alla loogu dhaweynayo riwaadkiisa loo gaarayo ayaa loogu tartamayo oo meedaan ama goob loogu tartamo weeyii marka dad baa iyagu markaasi badiyay liimaanina dadna markaasi way gaabiyeen wax kale ku mashquuleen way khasaareen waxaas la yaab leh meesha khayrka loo kala badinayo ninka khayrka kulli baana markaasi uu guul gaarayo ka isagoo ciyaaraya dheelaya television daawanaya film daawanaya wax kale oo markaa ku dhiga aan markaasi aan iska adduunyo oo ku jira kaasa markaa la yaab iyo wax lagu qoslo leh ayuu inaleeyahay imaamkaasi arinta gartay farsuh marka meesha tartanka lagu jiro waxay soo saaraan awoodooda inta ugu dambaysa ayay markaa soo saaraan oo dadaalaan oo orod ka dheereeyaan wadaagta markaa farsaale tansiina wad aragteen markaas awoodooda inta ugu dambaysa kolka mitirada ugu dambaysa la marayo ayay soo saaraan si markaas nihayada sibaaqa hay u guuleystaan muhiimadu iyo cibradu iyo fiiradu
ma aha inay markii bilowgii wax kaa yar qaldameen ama ay kaa dhinmeen ma aha. muhiimada iyo cibrada iyo fiiradu waxa weeye bikamaali annihaayaat inaad si fiican wax u dhammayso. hadda hadday markii bilowg wax kaa yar gaagaabiyeen oo nuqsaani kaa gashay waxaa muhiima xagga dambe inaad ka booriso. maxaa yeelay nebigu wuxuu noo sheegayaa inay tahay acmaashu bikhawaatiimihaa, wixii lagu dhammaystiro iyo gunaanadka inay tahay ayay markaa noqonaysaa. had iyo jeer gunaanadkaa la fiirinayaa. qofku wixii uu ku dhinto ayaa lagu soo bixin doonaa. kolkaa waxa ugu dambeeya waa inuu qofku markaa gunaanadka inaad ku dadaasho iyaa muhiima. ilaahayna subxaanahu watacaala waqtiyaalka faadilka ah wuxuu ka dhigay aakhirkeedu ka uu ka fadli badan yahay awalkeeda iyo bilowgeeda. haddaan misaalahan soo qaadano, masalan jumcaha waxaa fadli badan casarkiisa iyo inta ka dambaysa ayaa maalinta jumcaha bilowgeeda ayaa ka fadli badan. maalinta carafo waxaa fadli badan casarkeeda iyo gallinkeeda hore ayaa ka fadli badan. waa waqtiga ilaahay subxaanahu watacaala naxariista alla addoomihiisa usoo dhowaanayo oo u dambi dhaafayo weeye. bishaan haddaanu ku jirno 10keeda dambe ayaa u fadli badan oo ka fadli badan awalkeedii iyo wasadkeedii ayaa ka fadli badan. taana waa fursad ilaahay subxaanahu watacaala addoomiha uu siinayo. habeen iyo leyl waxay isku daba marayaani hadday mid wax naga dhaafaan inaan ka kala isdaba qabano, si addoomuhu markaasi ay isku daba qabtaano kii awalkiisii ay wax ka yar dhinmeeni ama wax si ka noqdeeni ama markaas yani muuganaan iyo qafla ay ku dhacday inuu marka aakhirkeeda markaasi si fiican u dhammaystiro. hadda waxaan isku baraarujinaynaa maadaama bishii Ramadaan hadda ay waraaqaheedii ay urursanayso, wixii ay liisaskii ay wax dadka ka qoraysay qaabka dadku u soomeen ay urursanayso, si ilaahay xaggiisa subxaanahu watacaala ay kor ula fuusho oo raboorkaasi ay u geyso. hadda waraaqihii bay ururinaysaa oo dadka wixii u dambeeya laga qorayaa. markaas sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qofkii wax ka yar gaabteeni inuu hadda wixiisii xagga dambe istaba qabto oo markaasi u dhammaystiro oo si fiican oo bishaan ugu sagootiyo. khayraadka 10kan ku jiraay lama malayn karo, wax la malayn karo ma aha. 10kan iyaga ah webiyaalkoodu waxay la dareerayaan daacooyin. daaco kasta ood samaysaay webiyaalkii way dareerayaan oo way socdaan. jannadii baa albaabadeeda furan, naarihii baa xidhan, shayaadiintii baa ka taysanaysan, dhawaaqa iyo hadiya jeer dhawaaqayo oo leh kii khayr rabow soo dhaqso, kii shar rabowna gaabso, waqtigeedii lama jooge. marka ayaamahan iyada ah ubaxyaalkeedii waxay ka soo dilaaciyeen ama afka ka soo wada qaadeen khayraad iyo biri ayaa ka soo boodayay. muruhu geeduhu markay midhaynayaan ubaxa horta soo baxa, markii dambena waa furmaa, murihii baa markaasi ka soo dhex baxa. muriyaalkii oo markaasi ubaxii oo dhashay 10kii hore iyo 10kii dhexda dhashay ayaa 10kan afka wada furanaya oo markaasi khayraadkii iyo birigii ay sidaa uga soo boodayaan. qofkii markaasi ilaahay waafajiyey bisha inteedii hore hadda tagtay wanaag si fiican u soo soomay ha dhammaystiro, sidaas ku dhammaystiro oo ha sii dhammaystiro oo xagga dambana ha si fiican u dhammaystiro. maxaa yeelay maqaasida alla inoo sheegay iyo ujeedooyinka bisha laga leeyahay ayaa waxay ka mid tahay walitukmilu lciddata, inaad bisha tiradeeda dhammaystirtaan, walitukabbiru llaha, ina allana la weyneeyo subxaana la weyneeyo, calaa maa hadaakum, wixii ilaahay inagu hanuuniyey oo bishaan iyo khayraadkeeda ah ilaahay subxaanahu watacaala loogu mahadnaqo oo darajatu shukrina la gaadho. diintuna labadaa shay unbay ka kooban tahay, ashukru wasabru, adkaysi oo daacada lagu adkaysto, macsiyada laga adkaysto, daacadana loo adkaysto, dhibta iyo wixii qadare yimaadana markaa loo dhabar adkaado. allana subxaanahu watacaala la isku xidho, labadaasay ka kooban tahay. oo waxaa kaloo ka mid ah oo bishaan markaas dhexdeeda ayaduhu ay sheegtay inay hanuunka qur-aanka laga kasbanayay oo shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas wabayinaati min alhudaa walfurqaan. ilahi subxaanahu watacaala qur-aankaasi waa hanuunkii oo markaasi loo baahan yahay bishaani markaasi inaa 10kan dambe aad looga faa'iidaysto iyo ina ilaahay loo dhawaado. oo waidaa sa'alaka cibaadi cannii
fa innii qariibun ilaahay inaad ka agdhawaato oo ilaahayna wuxuu jecel yahay addoonka barya ducadana ku celceliya ayuu jecel yahay ilaahayna ducada wuxuu kusii aqbalaa marka la joogo waqti faadila iyo xaalada qofku ku sugan yahay oo hadduu sooman yahay ducadiisu waa mustajaaba marka xaaladaada ood sooman tahay iyo waqtiga aad joogto bisha soomad joogto iyo inaad ku jirto tobankii u dambeeyey laylatul qadrigiina loo badan yahay inay markaasi tobankaasi ay ku jirto ay tahay intaay oo dhan waxay samaynayaan alle inaad ka agdhawaato ducana aad badiso si markaasi ugu dambaystana la gaaro qof ilaahay dantiisa garansiiya akhriya adduunyaba oo wuxuu ilaahay wax ku dhamaystiray waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ilaahay rashaad oo inaan caqli khayrka iyo wanaagga aynu ku garana akhriya adduunyaba inuu martabadana siiyo ayay ka mid tahay tobankaana markaasi loogu dadaalaya marka bishaani waa aayadaha siyaamka hadda waxaynu ka dheehanaynaa inaa qur-aankii akhrintiisa iyo ducadii allabariga hanuunka iyo wadooyinka hanuunka oo dhan lagu dadaalayo shukriga iyo ictikaafka la samaynayo si qalbiga loo hagaajiyo si loo dhaliyo cibaadooyinka alla uu jecel yahay oo cibaadooyinka qalbiga ah cibaadooyinka qalbiga ah iyaa ka qiimo badan kuwa xubnaha laga sameeyo daahirka laga sameeyo oo ay ka mid yihiin masalan ilaahay subxaanahu watacaala rajihiisa iyo quudarayntiisa khayrkiisa iyo cafigiisa iyo naxariistiisa la rajaynayo iyo ilaahay jacaylkiisa oo yoolka loo socdaa inuu ilaahay ku jeclaado oo yoolka loo socda meesha loo socdaa iyo ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa laga baqo iyo ilaahay subxaanahu watacaala xishoodka laga xishoodo iyo ka run sheegista laga run sheego ilaahay cibaadadii aan samaynayno aanu ka run sheegno iyo ikhlaas oo cibaadada ilaahay cibaadada aan samaynayno Allah subxaanahu watacaala awgii hanu bagaxtirno iyo al-iqbaal ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa inaan u jeesano al-iqbaalu cala allahi jalla wacala iyo watawakkul calayhi allah un kelidiina hantala saarano hub qofka mu'minkiihi aw qaato oo adduunyo aakhiraba u qaato waxaa ugu fadli badan inuu ilaahay subxaanahu watacaala tala saarto ilaahay atiraado xasbiya allahu wa nicma alwakiil hub ka weyni ma jiro zaad la qaatana wax ka weyni ma jiro tii alla inugula dardaarmay yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi attaqwa alla ka biqiisa alla ka baq subxaanahu watacaala inaa saad looga dhigto maadaama tobankii dambe aan ku jirno intaa iyo inta ka badanba waxaa loo samaynayaa inaa la helo laylatulqadrigii inaa la helo oo ilaahayna waafajiyo subxaanahu watacaala laylatulqadrigaasi waxyaalaha lagu helo waxaa ka mid a oo lagu raadsado si loo helo inta aan soo sheegnay iyo in kale ictikaaf oo qofka ay u suurto gashay inuu masaajidka laasimo ilaahay sa u caabudo calaaqaadka makhluuqaadka u jaro ilaahay uu adeegiisa iyo cibaadadiisa inuu qalbigiisa u faariqiyo oo ilaahay la kali noqdo sa uu qalbigiisa markaasi ilaahay u tuso oo ilaahay aqbalo oo qaabil xagga ilaahay au qaabilo oo tooba keeno oo ilaahay ma naftiisa la xisaabtamo oo arrimaha tadabburo oo si fiican quraanka iyo aayadaha ilaahay markaasi u dhuuxo saw habeenka u gaaro habeenka wax ogtihiin si markaasi dadku ay khayrkeeda u badala ugu dadaalaan ilaahay waa inaga qariyay adoomihiisa waa ka qariyay in la cayino oo inuu hel yahay la sheegana kor baa loo qaaday waad ogtihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam habeen inuu salaada subax soo baxay si uu dadka ugu sheego habeenka ay tahay laakiin laba qof ayaa masaajidkii dhexdiisa isku qabsada ku dooday doodada iyo qaharka masaajidka ka dhacay awgeed ayaa markaasi cadeyntii dadka loo sheegi lahaa baa kor loo qaaday way lama nasikhin oo lama qaadin laakiin in la cayino habeen hebel bay tahay la yiraaho ayaa markaasi kor loo qaaday saana waxa loo yeelay waana sida khayrku ku jiree si ay dadku u dadaalaan markay dadaalaana ay kororsadaan oo ay biirsadaan oo ay badsadaan camalka ay badsadaan markay camalka badsadaana waxa ka dhalanaya inay ajar dheeraad qaataan in hadii la oran lahaa habeenka kala tabi ku jirtaa inta kale inta la iska hurdo ayaa marka habeenka la iman lahaa say dadku badankooda hadda u haystaano habeenka 27 aad
ay masaajida soo dhoomaan ay soo buuxiyaan oo habeenadii kalena markaas ay meelaha ka sheekaynayaan. hadday sidaa tahay dee cibaadadu way iska yaraan lahayd, laakiin marka la yidhaaho tobanka dambe oo dhan bay ku jirtaa, tobanka oo dhan markaad dadaasho dee haddaad heshiya haddaanad helinba waxaad camal siyaadaad la imanaysaa. camalkaas siyaadadana waxaad helaysaa ajar siyaadaad ku helaysaa. waxaa kale oo meesha iyadana ay badan tahay qofka tobankiiba dadaalayay inuu laylatul qadrkii helo, qofka habeenka ay witrka ay soo baxay dee dabcan kaasa uga dhow inuu markaa ilaahay markaysa waafajiyo. habeenkaasi tilmaamaha ay leedahay iyo haddii alla kuu run yahay qaabka ay tahay hadda ka sheekayn mayno. oo nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ou yidhi ku dadaala habeenkaa raadiya, gaar ahaan tobanka dambe ka raadiya. wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iltamisuuha fi lcashri alawaakhir. xadiisyadii waxaa ka mid a inuu yidhi iltamisuuha fi lcashri alawaakhir, ka raadiya tobanka dambe, tobanka dambe ka raadiya, yani tobanka oo dhanbe ka raadiya. wuxuu yidhi fain dacufa axadukum aw cajaz, haddii midkiin ou daciif noqdo ama u kaba noogaba oo si una caajiso oo markaasi inuu tobankii oo dhanba dhammaystiro oo tobanka oo dhan dadaal siyaada u bixiya ay ku yar adkaato, wuxuu yidhi falaa yuqlabanna cala sabci albawaaqi, ayaana looga tanroonaanin oona ka habsaamin toddobada u dambeeya. marka toddobada u dambeeya ayaa aada loogu dadaalayaa habeenka 21 ilaa markaasi dhamayska bisha laga gaadhayo. bishu dhanka kolka tobanka dambe dhanka haddii xogga hore laga soo tiriyana waxay noqon karaan witrigu wuxuu noqon karaa habeenada dhibanisi bay noqon karaan. bisha dhammaadkeeda haddii laga tiriyana gaar ahaan hadday bisha 30 ku dhammaato waxay noqon kartaa witriga habeenada kale ee labada ay tirada buuxda ay tahay ayay noqon karaan. saa darteed sida ugu fiican waxa weeye inaad tobanka dambe dhammaantood lagu dadaalo, gaar ahaan habeenada dhiman lagu dadaalo. طيب haddiiba qofku uu dareemo oo dareen galo inuu laylatul qadri ilaahay subxaanahu wa tacaala au waafajiyey oo waa dareen iimaaniyaad ruuxaaniyaad baa dareentay iyo naftaadiina markaasi aad u firfircoon tahay oo si umad u dareentay, waxay dhici kartaa inay laylatul qadrigii tahay. sababtoo Caaisha waxay noo sheegaysaa nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam, waxay tiri bal iiga waran haddaan ogaado habeenka ay tahay laylatul qadriga, haddaan ogaado si unan ku ogaado si unu dareemo. say Soomaalida qof socday iyo wax socday baa ku imanaya, taas looma jeedo. waxa weeyaan waa un dareen qofka ku saabsan oo jirka qalbigiisa ku saabsan. haddii uu si ii gasho maxaan dhahayaa bay tiri, maxaan odhanayaa bay tiri. nabiga markaa wuxuu ku ilhaamiyey ama wuxuu ku irshaadiyey cafwan inay ducadan ilaahay ku barido oo tiraahdo allahumma innaka cafuwan, ilaahu waxaa tahay ka wax dhaafa ee cafiyaa tahay, tuxibu alcafwa, dhaafidana waad jeceshahay iyo cidda wax dhaafta. oo inanku dadka inay wax iska cafiyaan, ciddii dadka cafisana waad jeceshahay, adiguna wax waad dhaaftaa. facfu canii, ilaahi subxaanahu wa tacaala yacafi. hadduu ilaahay ku cafiyana khalaas waad ka gudubtay buundadii iyo biriijkii, waad ka gudubtay oo cabsida ahayd oo xagga ammaanka ayaad u gudubtay. culimada waxay fiiriyeen muxuu nebigu ugu dooray calayhi salaatu wasalaam Caaisha ducadaas gaarka ah oo inay ilaahay cafi weydiisata. masalan muxuu u bari waayey ilaahu jannada igee, ilaahu naariga badbaadi, ducooyin kale oo badan baa jira. laakiin muxuu tan oo ilaahu cafi ah muxuu ugu irshaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo almu'miniin radia allahu canha muxuu taa ugu baray. wuxuu leeyahay ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay inamaa amara bisu'aali alcafwi, wuxuu faray inay ilaahay weydiisato qofkaasi laylatul qadriga dareemay inuu habeenkaa qofka au weydiisto ilaahay cafid au weydiisto. habeenkii laylatul qadriga la joogo yani waa habeen weyn oo wax la weydiisto, macnaha wax weyn la weydiisto. haddaa laylatul qadriga dareento hadday wax weyn weydiisato, marka muxuu cafid u faray laylatul qadri iyadoo loo joogo oo qofku dadaalay habeenka isaga ah oo dadaalay oo acmaasha khayrka ku dadaalay habeenka oo laylatul qadriga uu joogi iyo habeenadii kale ee 10 ah ee bisha ugu dambeeyay.
wuxuu arrintaa u faray buu leeyahay maxaa yeelay dadka ilaahay yaqaanaay way dadaalaan acmaasha khayrka inay sameeyaan ayay ku dadaalaan deetana markay acmaashaa gutaan ma arkaan oo naftooda iskuma arkaan inay camal wanaagsan iyo xaalo fiican iyo weerar fiican inay la yimaadeen iskuma arkaan maxaa yeelay culimmadu waxay yidhaaheen dhibta u weyn ee addoonka ku dhexda kartaa waxa weeye inuu camalkiisa iska dhex arko oo inuu wax weyn sameeyey isku arko may ha fiirinin camalkaaga hadaad xitaa wax fiican la imatay ha fiirinine waxaad fiirisaa ilaaha ku waafajiyey fiiri tawfiiqila haddayna jirin maanad samayseen marna ma samayn kartid camal dhammaystiran oo sidii lagaa rabe ah ma samayn kartid hadii jeer camalkaagu wuxuu ahaanayaa kii ka hooseeya ee kii ka hooseeya ee ka hooseeya ee ka hooseeya sidii alla kaa mudnaa ayuu noqonayaa saa darteed marka iskuma arkaano kolkaasay waxay u noqdaan inay ilaahay cafi weydiistaan sidii qof mudnib ah oo muqasirahoo markaa gaabiyey oo aanan waajibkii ka soo bixin oo kale ayay iska soo qaadaan ilaahayna wuu ammaanay dadka habeenkii tukanaya wuxuu ku ammaanay aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih wuxuu ku ammaanay bal ka waran ku habeenkii oo dhan taagan aman huwa qaanitun aanaa alleyli isaga oo saajid ah oo qaa'ima oo tukanayo oo sujuudsan oo rukuucan intaa muxuu u samaynayaa wuxuu yarjuu raxmata rabbihi ilaahay naxariistii yaxdaru alaakhirata aakhiro iyo ciqaabta joogta ayuu ka baqayaa wayarjuu raxmata rabbih naxariista allana waa rajaynayaa hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inuu ilaahay yaqaano ayaana taasi sidaa u isticmaalaya qur-aanka waxaanu ku daawanaa had iyo jeer inaan aragnaa dadkii habeenkii tukadaayey kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa laleeyahay haddana waxa le bilasxaari yastakfiruun salaadii marka laga baxo istikfaar baa lagu dhameeyaa xajkii marka laga baxo istikfaar baa lagu dhameeyaa markaa khatmiga ama waxa lagu gunwaanadaayey ee udug looga dhigaayo lagu dhammaystiraayey camal kasta oo la sameeyo wanaagsan waa istikfaarta iyo inuu qofku markaa ilaahay cafi weydiisto sidaasay markaasi u munaasab noqotay uguna fiican tahay laylatulqadrigii iyo tobankii dambe iyo ramadaankii o dhan waxaa khayra lasoo sameeyey haddiiba ilahay laylatulqadriga ku waafajiyo waxa ugu weyn inay ilaahay weydiisataa inuu noqdo inuu helay ku cafiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naarta nagaga badbaadiyo cafintiisa naxariistiisana jannadiisa nagu geeyo wuxuu leeyahay imaamka kale la yidhaaho yaxya ibnu mucaad oo taabiciinta ka mid oo nin xigmad badayna wuxuu yidhi laysa bicaarifin ma ahan mid alla yaqaano oo cilmigiisa alla yaqaankiihi aw aada u qoto dheeryahay ma aha man lam yakun gaayatu amalihi min allahi alcafu ninka inaan ahayn gaayadiisii halka u socday ugu dambeeya ilaah ka rajaynayay aysan ahayn inuu cafiyo marka haddii alla ku cafiyo wax ka weyn ma jiro dadkii salafkiina waxay ilaahay ku bari jireen in ilaahay subxaanahu wa tacaala cafiyo marka ilaahay caf baan weydiisanaynaa inuu bishan ramadaan dambi dhaaf iyo cidqi min annaar innaga waalidiinteenna iyo maanta markaysaa ciddii aan jecel lahay dhammaan iyo culimmadii wax soo bartay dhammaan iyo dadka muslimiinta aba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aw cafigiisa nagu arsaaqo oo naarta nagaga xoreeyo waxyaalaha ugu fiican oo tobankaani lagu dadaalayo inta hadalkayga aad ka dheehateen waxaa ka mid a oo ah waxa ugu weyn oo bishan in ilaahay tobankan lagu baryo ugu weyn waa shayga uu ku magacaabay nebigu calayhi salaam akramu shay cala allah ilaahay xaggiisa waxa ugu karaamo badan oo ilaahay ugu jecel yahay oo ah adducaa oo aayaatu siyaamna ay inoo sheegeen oo ah ducada waxaa tahay qofka mu'minka waa hubkiisa weeyi xaajooyinka ayuu ilaahay ku gudaa dhibaatooyinka ayuu ilaahay ku faydaa subxaanahu wa tacaala cudurrada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka kaga caafiyaa madluumkana ilaahay guul buu ku siiyaa marka ducadu waa waxa ugu weyn aynu horta ku dadaalayno waxaynu kale ku dadaalaynaa
haddii alla kuu run yahay inaan badino waxyaalaha albaaqiyaat saalixaat ilaahay ku magacaabay ee hadhooyaha ima dhammaadaha ah ee la dhexli doono oo ay ka mid tahay tahliisha laa ilaaha ila allah la badiyo takbiirta oo la badiyo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir wixii lamida tasbiixda oo la badiyo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi oo la badiyo التحميد الحمد لله والله بديو إيوه قول لا حول ولا قوة وكنز من كنوز عرشك هوستي سلقا صوصاري كاسو كلا إلا بديو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بديو إنا استغفارت إلا بديو محايا الاستغفارتو وحي علماء ليهين وحي صومك كهلاوي أما كقتل دلاعمي أما خلل إيردنان دحقالي ayay kuu toltolaysaa oy kuu hagaajinaysaa oy kuu islaaxinaysaa oy kuu suubinaysaa oo waxayna yidhaaheen istikfaarta waxaa ugu fiican uguna nafci badan midda ay la xidhiidho towbo istikfaar towba la socoto ayaa ugu fiican waxyaalaha kale oo markaasi aynu samaynayna waxaa ka mid a 10kan intaan ka awoodi karno asadaqaat waana burhaanta iyo xujada qofka iimaankiisa ku tusaaya siduu nabigu yiri as-sadaqatu burhaan xoolo la jecel yahay qofka bixiyaay waxay u tahay inuu qofkaasi iimaan leeyahay bay ku tusaysaa dambiyaalka ayaa lagu tirtiraa ilaahay caadadiisa iyo damiisa xoolaha iyo ehelkana iyo risqigana way barakaysaa qofkana way taskiyaysaa waa badan yahay waxa bishan la sameeynayo waxaan u jeedaa 10kan la sameeynayo hadalkaygu waa buraarujin adiga wixii kuu fudud samee adigu khayrun ku dadaal khayr oo dhan ku dadaal haday kuu fududahay adkaar haday salaada kuu fududahay haday quraan kuu fudud yahay haday sadaqa kuu fududahay wixii horta kuu fudud jannada albaabadeedu waa 8 qofba xaq u badiyo ayuu ka iman doonaaye khayraarka aan sheegnay oo wiyaalka durduraya ee 10kan dambe khayrka durduraya ha ka qadin ayayna si yaro fudud kugu dhaafin sidaan sheegnay waxyaalaha ugu fiican waxa kamida quraanka ducada sadaqada salaada cafinta wax la iska cafiyo dhikriga ilaahay oo la badiyo tawbada oo istighfaar la socoto waxyaalahaas oo dhan ayaynu ku dadaali doonaa marka bisha Laylatul Qadriga ana haynu insha Allah rajo weyn ka qabno Allah subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa in soo gaashiyay bishaani in soo gaarsiiyay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha naga aqbalo inta noo hadhayna ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu dhameystiro sida wajigiisa raali geliso subhanahu wa ta'ala naguna arsaaqo bishan intayna dhamaanin tawban nasuuxa oo nagu arsaaqo baan ilaahay ka baryaynaa waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala bishaani Laylatul Qadriga aw nawaafajiyo naga dhigo kuwa Laylatul Qadriga kacay iimaan wa ihtisaaban kacay ee marka tukada ilaahay naga dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigo kuwa la aqbalay oo loo naxariistay awna naga dhigin kuwa la cayriyay ee la qadiyayna Allah subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigin ilaahay waxaan ka codsanaynaa bishan inuu ka dhigo dheeftaan ka dheefaynaaye naartu ilaahay naga xoreeyo ee jannada oyno ku guuleysano ilaahay naga dhigo ee ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu huwiyo marka ridwaankii raali ahaantiisa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala awna huwiyo taasaan ka baryaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiq taasaan weydiisanaynaa 10 soo socdana aan aadkeeda dadaalkeeda aad u bixino hadalkaygu waa badan yahay waana sii badnaanaya intaana kuma eke ilaahay baan tawfiiq weydiisanaynaa intaasaas ku soo gaabsanaya wa aakhiru dacwaana an alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma anta rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته